waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog aan kaga hadli doono 5 xaqiiqo oo gaar ah atirshada caanka ah ee Juhi Jalwa waxay ka mid tahay hablihii aadka loo jeclaa sagaashameeyadii kuwa oo ka xamaalan jiray shirkadda caanka ah ee Bollywoodka haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa 5 xaqiiqo aad jeclaan lahaydeen in aad ka ogaataan quruxleedii Bollywoodka waa hadda gabadha lagu magacaabo Juhi Jalwa balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa inaad janaalka soo birto subscribe saarto haddii uu muuqaalku cajib geliyo like inoo saar wixii ra'yi aad qabto commentiga hoos inoogu reeb sii share garee oo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal atishadan Juhi Jalwa waa mid kamid ah atishadii aadka loo jeclaa ee soo mara taariikhda markii la eego shirkadda aflaanta sameysay ee Bollywoodka atishadan Juhi Jalwa ayaana kamid ahayd hablihii aadka loo jeclaa horaantii sagaashameeyadii markaan eegno Juhi Jalwa xilliga ay dhalatay ama taariikhdeeda oo kooban waxa ay dhalatay 13 November sanadii 1967 waxay ku dhalatay magaalo lagu magacaabo Ambala oo ka tirsan gudaha ama ka tirsan dalka India ee saaxiibayaal Juhi Jalwa abeed waxa lagu magacaabaa Dr. Jawla halka hooyadeed lagu magacaabo Mona Jalwa Juhi Jalwa sanadii 1995 waxa ay guursatay nin ganacsadaha ka oo lagu magacaabo Jemeta waxa ayna u dhashay wiil iyo gabar kuwa oo lagu kala magacaabo saaxiibayaal wiilka waxa lagu magacaabo ama wiilka ay dhashay Juhi Jalwa Arjun Mehta halka gabadha lagu magacaabo Janvi Mehta haddaba saaxiibayaal atishada markaan eegno waqtigii fanka ay ku soo biirtay waxay fanka Hindi ku soo biirtay sanadii 1986 filimkii ugu horeeyay ama filimkii ugu horeeyay ka soo muuqatan waa filimkii caanka ahaa ee Suldaanaad kaas oo hogaamiyaasha ay ka wada ahaayeen Dalmandar iyo wiilkiisa Sinidol sidoo kale waxa filimkaas ku heliyay atorihii lagu magacaabo jiray Karan Kapoor ay Soomaalidu dhihi jireen atorihii Ameerikaanka ama atorihii Ingiriiska markaan eegno atishadan iyo sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaan geliyay ilaa 5 xaqiiqo ayaan idinla wadaagi doonaa saaxiibayaal xaqiiqada ugu horeysay atishadan aan idinla wadaagi doono waxa weeyaan waxa la leeyahay atishada lagu magacaabo Juhi Jalwa waxay iska lumisay fursad ay ku qaadan kartay awaalmarinta qaaliga ah ee awaalmarinta aan dhahay National Film Award oo ay bixiso dawladda India ama awaalmarinta National Award ay dawladda Hindiya bixiso maadaama ay iska diiday in ay jisho filimkii caanka ah Diltu Pagal Hai ka oo la daawaday sanadii 1997 waxa la leeyahay gabadha lagu magacaabo Juhi Jalwa ayaa markale loo bandhigay in ay jisho booska gabadha lagu magacaabo Karishma Kapoor laakiin waa iska diiday in ay sameyso doorkaasi waxaana la leeyahay hadii doorkaasi ay sameyn lahayd waxay ku guuleysan lahayd awaalmarinta National Film Award ay bixiso dawladda India laakiin waxa nasiib u yeelatay in awaalmarintaas ay qaadatay atishada caanka ah ee Karishma Kapoor xaqiiqada labaad ee atishadan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan waxa la leeyahay Juhi Jalwa waa atishad caan ah haddaba waxaad ogaataa in ay taageero weyn u ahayd atishadii geeriyootay ee Sardevi gabadhan ayaana aad u taageeri jirtay Sardevi walow ay ka mid ahayd iyadana gabdhihii aadka loo jeclaa sagaashameeyadii xaqiiqooyin kale ee laga diiwaan geliyay gabadhan waxaa kamid ah waxa la leeyahay Juhi Jalwa waa atishad la soo shaqeysay aktaradii ugu awoodda badnaa marka la eego sagaashameeyadii ee shirkadda caanka ah ee Bollywoodka laakiin Juhi Jalwa weligeed lama aysan shaqeynin jilaaga caanka ah Salman Khan waxayse oo kaliya ay ku kulmeen hal filim ka oo lagu magacaabo Dewana Mastana filimkaasna Salman Khan waxa uu ka ahaa yani ama uu ku lahaa muuqaal martiya muuqaal aan ka badnayn 10 daqiiqo ayuu ku lahaa oo ultimate ayuu soo baxayaa dadka daawada ayaa yaqaan filimka Dewana Mastana waa filim ay hogaamiyaal ay ka wada yihiin Anil Kapoor iyo Govinda iyo gabadhan lagu magacaabo Juhi Jalwa saaxiibayaal xaqiiqooyinka gabadhan laga diiwaan geliyay waxa kamid ah waxa la leeyahay Juhi Jalwa sanadii 1984 waxay ku guuleysatay awaalmarinta gabadha ugu quruxda badan dalka India ama Miss India ayay noqotay sanadii 1984 xaqiiqada kale ama xaqiiqada ugu dambeysay atishadan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan saaxiibayaal Juhi Jalwa ayaana iyadoo aad u dacyar waxay ku soo birtay fanka India filimkii ugu horeeyay ee ka soo muuqatan waa filimka caanka ah ee Suldaanaad kaas oo la daawaday sanadii 1986 waxaana filimkaasi u xigay filimkii jaceylka ahaa ee Qiyaamad Tag oo ka oo ay la wada jilaaga caanka ah Amir Khan kaas oo ay ku heshay magac iyo markii la eego darajo maadaama uu ahaa filimkaasi filim aad loo jeclaa sanadii 1988 haddaba saaxiibayaal gabadhan lagu magacaabo Juhi Jalwa waxay kamid ahayd hablihii aadka loo jeclaa sagaashameeyadii ee ka soo muuqan jiray aflaamta Bollywoodka atishadan ayaana inta ugu badan la soo shaqeysay jilaaga caanka ah ee Shah Rukh Khan kaas oo ay kala soo muuqatay aflaam badan walow ay jiraan aflaam ama aan dhahay jilayaal kale oo ay la soo shaqeysay sida Ajay Devgan Akshay Kumar iyo Amir Khan dadyo kale ayay la soo shaqeysay caan ah sagaashameeyadii laakiin atishadani sida hore idinku sheegay jilaaga caanka ah ninka lagu magacaabo Salman Khan weligeed lama aysan sameynin filim dhameystiran oo atrishad iyo actor ay ku mataleen
haddaba saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xogta yareed ama shantii xaqiiqo aan kala wadaagaya atishada caanka ah Juhi Jalwa. Fadlan haddii aad muuqaal ka heshay like inoo saar, channelka dadku cusub taana subscribe inoo saar, wixii ayaad qabtana comment hoos inoogu reeb, sii share garay oo la wadaaga asxaabtaada. Waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.